بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada xalqad yar oo gaaban iyo insha Allah BCY TV. muuqaalkan idiin muuqdaa waxa weeyaan daaci kamid ah ducaada muslimiinta oo maaragtay saldhigiisu yahay magaalada Manchester wadanka Ingiriiska. daacigan magaciisa waxaa lagu magacaabaa John Fontaine. waxaa maaragtay uu yani faafiyaa diinta islaamka kadib markii uu muslimay oo maaragtay daaci ayuu noqday sida dad badan oo maaragtay reer galbeedka ah inta badan ay noqdaan. daacigan John Fontaine baa wuxuu maanta ka hadlayaa arrin aad u xiiso badan runtii oo maaragtay yani wuxuu ka hadlayaa raggii musiga garaacan jiray ee rapperiska la odhan jiray. waa nimankan sidaas maaragtay u ciyaara maaragtay rapperiska loo yaqaano oo kuwo badan oo iyaga ka mid ihi ay soo muslimeen. markaasi waxa uu jaanis u helay maanta oo uu ka sheekaynayo ayaynu eegi doonaa insha Allah. waa kan Sheikh John Fontaine oo ka hadlaya. I actually had the opportunity to speak to the game. Now the game, if for those who don't know, is one of the most waxaan fursad u helay inaan la hadlo ninka loo yaqaano the game. macnaha ninka loo yaqaano ciyaarta ama the game loo yaqaano waa magac uu maaragtay ku duubo maxaan ku idhahdaa heesaha oo maaragtay markuu soo sariyo company waliba magac u samaystay ayuu wuxuu samaystay shirkad heesaha samaysa oo maaragtay la yidhahdo the game. waa nin taajira oo maalkiisu uu ka badan yahay 22 milyan oo dollar yani maalka uu gacanta ku haystaa. musigiisana maanta caalamka aad looga dhagaysto. ujeedada aynu ka wadanaa waxa weeyaan in aanay dadku ku qanacsanayn maaragtay nolosha adduunyada ee maalka ah inaanay ku qanacsanayn. ilaahayna subxaanahu wa tacaala markii uu nebiyullaahi aadam uu maaragtay soo dejinayey yani dardaaranadii la soo faray waxaa ka mid ah wa imaa ya'tiyannakum minii huda faman ittabaca hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka. macnaha dardaaranada la soo faray waxaa ka mid ah in haddii laydiin soo diro maaragtay ambiyo laydiin soo diro waxyi rag dhambaal sida laydiin soo diro yani kii raaca dhambaalkaasina laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun. yani khawf iyo murugo toona male. khawf waxaa la yidhahdaa wixii mustaqbalka kugu soo socda. wixii kaa tegayna waxaa la yidhahdaa waa murugo xusni weeyaan. midna khawf bay samaysaa midna xusni bay samaysaa midna murugo midna waxa weeye baqdin. marka laakiin qofkii kuwa maaragtay diida faina lahu maciishatan danka kelmadaas baynu u dan leenahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi faina lahu maciishatan danka. bal halkan waxaynu ku arkaynaa nin ka mida dadka haddii caalamka la yidhaahdo waa tujaar lagu daro yani dadka tujaarta ah ka mida caalamka yani dadka ganacsibaa u furan. waa nin heesa waa nin dhallinyaro ah waa nin adduunyadu ay maaragtay isugu haddii ay faa'iido leedahay ay isugu dhacsan tahay isaga. yani aragtida dadka marka la eego yani qiimeeya waxa loo yaqaano materialka ama maadada dadka qiimeeya marka la eego. laakiin islaamku wax kale ayuu qiimeeyaa oo wuxuu qiimeeyaa iimaanka iyo ma garanaysaa acmaasha saalixada ah. waynu eegaynaa insha Allah. bal waxa uu yidhi Sheikh John Fontaine oo ka mid ah ducaada muslimiinta waxay uu ka yidhi kulankii uu la yeeshay markii uu ninkaasi iyo kooxdiisu ma garanaysaa ay yimaadeen meesha loo yaqaano Manchester wadanka Ingiriiska. marka oo jaanis u helay inuu la kulmo ayuu markaasi ayuu ka warramayaa hadda oo uu leeyahay markii aan la kulmay waxaan ugu tegey macnaha ninkaasi ummaddu ay daba yaacayso musigiisa la dhegaysanayo sidaa ma garanaysaa loo dabagelayo meel walba ganacsigiisii ka socda xagga musiga oo ciyaarahan raabka loo yaqaano dadkan isjejebiye weeyaan maaragtay ciyaaraha raabka loo yaqaano imika beryahan dambe maaragtay calanka u sidaa ma garanaysaa hawlaha ma garanaysaa suugaanta reer galbeedka khaasatan weliba Maraykanka. bal waynu eegaynaa
hadda wixii uu ka yidhi markii uu la kulmay kadib John Fontaine. Influential rappers of our time is one of the modern day poets. Now we're living in a time where many rappers are leaving the rap industry and coming to Islam. We've got many rappers such as Napoleon from Tupac's Outlaws. We've got other raggan uu meesha soo taxay oo dhan waa rag wada muslimay ninka Al Jazeera laga wareysanaya garka weyn lii waa nin muslimay oo rap buu ahaan jiray ninka kale kii maska qoorta sudhay waxa soo dhan waa ragii wada rapka ahaan jiray ma garanaysaa soo muslimay oo markaas dunida haystay yani dhinaca heesaha rapka loo yaqaan marka bal wixii uu kala kulminay waynu eegnaa insha Allah. Brothers such as Loon and Freeway, which have also come to Islam, and it's becoming quite a unique thing where many people from the rap industry are actually coming to Islam because they can see. kuwa badan oo kamid ah raggaasi sida degdega ah u lacagaystay ma garanaysaa mehnada rapka ka shaqaysta waxa weeye kuwa badan oo kamid iyagu way islaameen ha u badnaadaan Mareykanka iyo wadamada kaleba reer galbeedka kuwaas badankoodu way wada muslimeen bal waynu eegaynaa waayo waxay yani waa dad maalna haysta haddii maal wax tarayo maalna way haystaan marka waynu eegaynaa insha Allah. See that there's something for them. Now I was very interested to know that the game was actually coming to Manchester. ninkan waa ninka aynu ka sheekeynayna hadda ee uu la kulmay oo kooxda faraha badan ay la socoto oo maaragtay uu kula kulmay wadanka Ingiriiska waa ninka marka mawduuciisu maanta ku saabsan yahay Sheikh John Fontaine. Manchester, and I got wind that he was coming to a secret location which I knew about, so I thought I'd go along to give him some dawah. Now we'll come to the dawah later to tell you what. waxaan markaasi ogaaday meesha uu maaragtay joogo dabadeedna halkii baan maaragtay aan ku tala galay inaan ku siiyo dacwo. What happened with the actual points which led to me speaking to him. But first I want to go to a few clips of the game. He's not happy with his career. No, man, because people don't understand, man. And that's why I don't want to be a part of hip-hop no more. Because it just... waa ninka ay murugadu ka muuqato waa ninkaas le lacagta 22 milyan ee dollar waa ninkaas maanta dadkii dhalinyarada habasa u dabayacayaan ee music lagu daaranayo ma garanaysaa baabuurta iyo guryaha iyo meel walba goobaha shaqada musicisa telefishinada laga soo deynayo haddana wuxuu leeyahay kuma faraxsani inaan rap ahaado kuma faraxsani waayo wuxuu og yahay in ay tahay ala bi dhikrillahi tatma'innal qulub ذكرك إلهي أي قلوبته لعكم حسشوا محن كورا داي مالكم حسشوا مجعكم حسشوا محل يرادا وحاس أردنكم حسشوا ذكرك إلهي أي قلوبتكم حسشا نكاسو وحاسو مالا هايستا ما أنت قبلها تودونه قادن كرا مقرنا يسوي حدي عن مسلم هاين تودونه أي هركر سراع عيسو ما أنت ما هنين جوابي عذر يوحيان ماها لكن وانينكاس ماركتي يعني مال كان هايستا dhalinyarada hadana murugada ka muuqato waa arkaysaan baa filayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa in uu khaatimada khayr inoogu khatimo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiinaynaa miskiinkaas murugaysan iyo dadka kale ee ma garanaysaa dhunsanba waxaynu leenahay dhamaantayaba ihidina siraatal mustaqim wal waynu sii eegaynaa. It just ain't right, man. And يعني كما فرح سنة إنه راب سي أهاضو نلوشن راب كإنه كتشرو ونلول وذا اللعقة وذا مقرنة ساي مقع إيو مقرنة ساي وقفتي وحوال بيا شيء وما أنت وحوال ببابور تيس أو قرى هداد أركتان وذا تعتشبي سان يعني أنت بابوري أو هايستو أو كليا ذا هالكا كي أكتان هالكا كي أكا أنت بابوري هايستو أو قرى كليا ننكاس يعني halkan waxa ka muuqda yani baabuurtiisa oo kaliya iyo maalkiisa waxa uu maal haysto wax baabuur haysto waxa soo dhan
يعني وانكاس هذا كيسان وموتدي وبابورتي وحول بقريه يعني بابورته ugu qaalisan caalamka ayuu haystaa baabuurta caalamka ugu qaalisan sida shaararka aynu kala bedelo ayuu kala bedelayaa baabuurta intaas baa inaga filan baan filayaa isaga yani waa ninkaasi weeyaan haddana wuxuu ku leeyahay yani kuma faraxsani in aan raabsi aado waliba ogow waa meeshu ka lacagaystay oo waxa Soomaaliya uu haysto ee baabuura muu haysan waa nin ku dhashay wadanka Mareykanka maxaan ku raahdaa sagaal iyo toddobaatankii baan filayaa inay ahayd wuxuu degan yahay Los Angeles buu degan yahay wuxuu haystaa waxa Soomaaliya haddana ma qanacsana alaa bidhikrillahi tadma'innu alqulub ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqaa'iqda uu inoo soo dejiyay quraanka kariimka in aynu markaasi aynu yani qalbiyadeena ku qancino ayaan maaragtay u duubay fiidiyowga oo aanay markaasi adduunyadu aanay waxba taraynin halkaana lagaga tegayo kii haystayna sida ninkaas aynu tusaalaha u soo qaadanay oo kale uu markaasi aanu ku qanacsanayn laguma qanacsanay adduunyada waxa lagu qanacsan yahay ma cinda Allahi waxa ilaahay agtiisa yaala ayaa ka khayr badan innaga iyo duriyadeenna iyo ma garanaysaa aswaajteena ehelkeena qaraabadeena iyo dhammaan dadka muslimiinta ah oo dhan waxaynu u rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo iyo hanuun iyo inay maaragtay xaqa ku dhaqmaan iyo in qof walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay qof walba inaga mida inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaqa ku sugo inta adduunyada lagu nooliyo khaatimadana uu khayr noogu khatimo وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كريم كاير قابا أنا قلت لك لي الدنيا وحا أي تهي إن أتكو حسوستان هي ما قرانيسا أيان ماركتي كسوق بقبيني إن شاء الله فسي الشير قرية ولا لها هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadkii dhammaanba subscribe ka saarayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr aljazaa siina faafiya inta cusubna waa ku faraxsanahay inay kusoo biiraan channelka BCY TV assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas baynu kusoo gabagabaynaynaa insha allah intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa insha allah